يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان indhihii oo kale ayuu wuxuu ku keeni karaa xanuuno fara badan wuxuu keeni karaa in dhiig ku furmo indhaha wuxuu keeni karaa inay mataqaan xiidadu ballaarmaan aneurysm baa lidhahdaa way ballaadhaan aneurysm baa lidhahdaa way ballaadhaan mararka qaarkoodna waxaa dhici karta wax la yiraahdo cortical blindness baa dhici karta oo qofkii siduu u joogo unbaa loo leeyahay saaku soo kacay waxa ma arkay يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إخوتي الأعزاء شهاكستو أنو ذي كم وقنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبينكي جمعه aynu ugu talagalnay aqoon kororsiga cilmiga guud caawa waxaa inoo marti ah Dr. Axmed Aadan Buuxane waa doctor aqoon u leh cilmiga baatiniga ama internal medicine-ka ama cilmiga uurku jirta waa doctor aqoontiisu marka hore cudurrada guud ayuu aqoon badan u leeyahay waa professor jaamacadda Camuud wax ka dhiga muddo dheerna Hargeysa ku shaqayn jiray cilmiga caafimaadka ilaa haddana hawshii gacanta ku haya wuxuu leeyahay waayo aragnimo ilaa iyo dhowr iyo 20 sannadood oo cilmiga caafimaadka ah takhasusaad fara badanna uu diyaariyay doctorku waxaan ka codsanay isagoo boorama jooga inuu nagala qayb qaato cilmiga aqoon kororsiga ee ummadda loo gudbinayo waxaa ka markhaati tihiin inaynu masaajidka ku marti qaadnay dhakhaatiir aada u tiro badan aqoon fara badanna aynu ka faa'iidnay macluumaad fara badanna ay noo kordhiyeen nin walibana wuxuu aqoon u lahaa aynu ka martinay dhakhtarkii ugu dambeeyey waataynu ka qaadanay can cilmiga macaanka waxyaalo badan oo aynu aaminsanayn siday hayawaankii inoogu sheegay maantana waxaynu wax ka qaadan doonaa xanuunkan la yidhaha dhiigkarka blood pressure-ka ama daqda dam ayaynu wax ka ogaan doonaa waa cilmi aada u waasica waa xanuun dad badani maanta ay la shaqaysan kari la'yihiin oo noloshoodii wiiqay dhaqaalahoodiina hoos u dhigay waa xanuun ilaa iyo hadda xalkiisu uu gundheeraaday siyaabo badanna ku yimaada dadka badankoodu waxay u haystaan dhiigkarku inuu xanuun yahay laf ahaantiisa laakiin dhiigkarku isagu daata ahaan xanuun uma aha ee waa calaamad xanuun baa la yidhaha calaamad xanuun weeyaan dhiigkarku oo asbaab badan baa keeni kara dhiigkarka oo keliya xanuun baa keeni kara goytarkaa keeni kara cholesterol baa keeni kara macaadinta jidhka qaarkood oo isbedela baa keeni kara marka xanuun meel ku dhegan oo la odhanayo xubintaas
ayaa abuurta dhiigkarka ma jiro laakiin calaamad weeyaan inuu xanuun jiro kuu soo tabinaysa markaa digtoorkii aqoonta u lahaa ayaa caawa inoo martiya dhiigkarka sidee looga badbaadi karaa haddii uu kugu dhaco sideed u fahmi kartaa haddii aad fahamto sideed isuga daaweyn kartaa xaalado badan ayuu digtoorku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tacaala waxaana rajaynayaa insha allah inuu ilaahay carabkiisa waafajin doono hadallo fara badan oo taariikhda u gala oo intifaaca ummadda insha allahu tacaala intuu hadalkaasi duuban yahay guda iyo dibadna waa laga dhegaysanayaa digtoorka waxaan leeyahay digtoor ku soo dhowow ummaddaadii iyo ehelkaagii oo kaaga baahday aqoontaadii inaad wax uga sheegto falyatafadal jazaaka allahu khayra الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا ليال وحان عاوة سدا ولالكي يا شيخي الشيخ محمد وينو شيخي عن دول مريدونا حنونا ذا وكمدي هيدي كركو واللي بكاسون عاوة أدو هذي دونو إلهي وحان كبري إنه دمانتين قلوبتين كعافي حنونك أنت وهاينا إلهي كبوكسيو مركا إنه آخرنا إلهي ديك وحبا ما كفهم الدونا حل عذر دار باجرؤو أنا قد خاطرهان إن كستون أنا جو جامعة دي مقدشو أحكو صادقتي جامعة دي صنعنا وحكو صادقتي marka talyaani baan wax ku barnay markii hore markii dambana af ingiriisi iyo carabi baan ku baranay marka waxaad u malaysaa cudurrada in halkeenan aanan cilmi ahaan loo qorin marka way jirtaa in xaqiiqo ah in cudurrada wax badan aynu ka naqaanay laakiin imika haddaan idhaahdo dacar ama qaras ama oof ama jeeni wareen nooc loo qeexo cilmi ahaan oo la taabto waa kaa iyo kaa iyo kaa ay cilmigii kale sayniska lagu taabto ma aanu jiro waa gaabin anagu aan gaabinay intii ka baratay cilmiga caafimaadka saa awgeed magacaantii akhrintii wixii oo dhanba luqad ajnabiya un baanu ku haynaa saas awgeed raalli baad ka noqon doontaan waan isku dayay inaan af Soomaali balbalaaran ku sheego laakiin haddii meelaha qaarkood xogaa nagu cuslaadaan saasaan ku qaadanaynaa looma baran masaajidda waxaan laga akhriyo laakiin asalkii diinta hoo asaas waxaan jiray culimadu sida ay soo wardiyaan ama soo dikriyaan waxay yiraahdaan sheekh aan cilmi dibbiga wax ka aqoon culimada aimada ee la yaqaano ma aanu jirin waa la yareysan jiray bay culimadu la asaas yiraahdaan waa la yareysan jiray ninka cilmi sheegta aan cilmi dibbiga waxba ka garanay waa la yareysan jiray maantana dad kooban baa lagu soo koobo taasaa keentay dhibaato alxamdulillah laakiin maanta intaan dadaalka badan la bixiyay wixii ka dambeeyay 2000 dad badan baa noo soo baxay aqoonyahan badan baynu leenahay marka waxaan dul mari doonaa xanuunkan si aynu u fahanno markaa horta waxa la yiraahdaa hypertension waa afkii ingiriisiga ka kalena waxa la yiraahdaa daqdu dam waa carabigi innagana dhiig kar bay yiraahdeen dhinac kalena dhiig cadaadis baa la oran karayaa waxa uu ku dhacaa xubno ama organo isku xidhan oo la yiraahdo cardiovascular waa xididada bini'aadamka jirka ilaahay nasiiyay oo dhan iyo waxa weeyaan waxa la yiraahdo wadnaha labadaas ku dhacaa waxa weey ku dhacaa xididada iyo wadnuhu ku dhacaa xanuunkaasi marka xididadena marka la cabirayo kuwa dhiigga ka soo qaado wadnaha iyo kuwa dib ugu celiya saas u wareegaan sida ma taqaanaa biyaha wareego kale ayay saa u wareegayaan oo ilaahay ma keenay haddii meel ka furanto dee dariiqa biyaha socdaa iyo way joogsanayaan marka way xidmayaan
qofkuna uu dhimanayaa ilaahay baa ugu talagalay inay bartooda ku jiraan saasun u wareegaan deedna halkaasay ka shaqeeyaan marka dhakhaatiirtu waxay yidhaahdaan haddaynu soo qaadanno xubintan oo aynu xiidada isku xidhno aynu xadhig dheer ka dhigno waxay gaadhaysaa ilaa 60,000 oo mayl dhinaca kale waxay yidhaahdaan maye waa 100,000 oo kilomitir waxyaalaha qariibkay ka mid tahay jirkaaga haddii xubin loo jarjaro oo waxa xiid ku yaallo keliya la isku daba taxo intaasay gaadhaysaa meel aan jirkeenna xubnaheenna meel aan jirin weeyaan meel aanu xiid ku jirin xubnaha dhintay oo keliya waxaa la yidhahdaa kuwo keratiin baa la yidhahdaayo waa timaha iyo cidiyaha labadaas uun baanu ku jirin xiidadu soo gaar laakiin inta kale jirkeenna ah xiidadu way ku jiraan sidaa awgeed waa xubin aad u weyn xubnaha ugu waaweyn jirka bini'aadanka ah laakiin aan la aqoon weeyaan haddaba waxaa dhacaya dhiiggaa sidaa u socda sida biyahoo kale u wareegaya ee bamkii soo garaacayana uu yahay wadnaha ayaa waxaa ku dhacaysa ciladaasi maxay tahay markaa laba tusaalaan siinaynaa tusaalaha koowaad waxa weeyaan ma aragteen mar allaale iyo marka shay aad cadaadiso socdo ah kaba soo qaad imika banjarlaha oo kale mar allaale iyo marka la rabo hawada in xoog lagu soo saaro maxaa la sameeyaa tuumba yar baa la sii geliyaa tuka yar baa la sii geliyaa taasi maxay keentaa xataa dhawaaq bay samaysaa xoog buu ka soo baxdaa hawadu hadduu doonayo inaan ka shaqaynaya markuu xataa dhashka farkiyo kuu yaraa buufinayo afku ka furaayo hal weyn oo gacantu ka qabtay inaguna marka imika biyaha waraabinayno oo kale tuumbada biyaha socda haddaynu aad u cadaadino aad bay u duushaa meel fog bay gaadhaa macnaheedu waxay ku muujinaysaa cadaadiskaas marka cadaadiska lagu sheegaa waa kaasun jirkeennii oo caadiya dhiiggeennii oo qulqulayo wanaagsan ayaa ciladan baa ku imanaysa xididadii ayaa cadaadismaya dabadeedna qulqulkii dhiiggii ama biyihii ku dhex jiray gudahani xoog bay u soconayaan horta inta lagu sheegay la fahmaya waa intaasun weeyaan hadhow talo markaan dawada u galaynana waa arki doonaa tan un baan ka raacaynaa biyaha xooga u socday cadaadis ku dhacee tuumbadii yaraatay sidee baynu kaga dhigi karnaa mid qulqulaya unbaa noqonaysaa example yaro basiida haddaynu tuumbada biyaha furno oo kale waxaanu naqaanaa inay xoog ku socoto biyaha soo maaha mararka qaarkood marmarna caadi buu qulqushaa soo maahan haddii cilmi ahaan la weydiiyo la war biyaha xooga ku socda maxaad seed ku yareyn lahayd waa laba uun inaad xidho ood xag ka soo xidho iyo inaad tuumbo ballaaran aad geliso diameterkii wax la yidhaahdo tuumbada afkeedii aad ballaadhiso taa uunbaad ku xallin karaysaa dhiigagga lagu sheegaya marka waa intaasun haddaba waxay u baahan tahay yuu ku dhacaa halkuu kaga dhacaa suu ugu dhacaa bini'aadanka ilaa hadda cilmi ahaan waxaa ku qoran annowm lama yaqaano wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliil innagii yacni xanuunkii waa la garanayaa oo dhibaato waa la garanaya laakiin maxaa u asala halkuu ka yimaadaa suu ku yimaadaa ilaa hadda lama hayo laba nooc baa loo kala qaybiyaa waxaa la dhahaa 7% waxaa la yidhaahdaa dhiigkarka caadiga essential hypertension dhiigkar caadiya la yidhaahdaa sida caadiga lama yaqaan meeshuu ka yimaado laakiin waxaa la yidhahdaa da'da u dhaxaysa 39 ilaa 70 iyo wixii ka sarreeya ayuu ku dhacaa una badan yahay ayaa la yidhaahdaa waa la arkaa carruur ku dhaco labada jinsina uu ku dhacaayo rag iyo dumar uma kala socno laakiin da'da 39 wixii ka dambeeya ayuu ku dhacaa saasaa la yidhaahdaa uu ka soo horreyn karaa macnihii weeyaan xanuunkaasi marka qayb ka mid oo 3% ah culimada qaarkood 5% bay gaarsiiyaan ayaa wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa waxa keena secondary hypertension baradaayo waa mid thanawiya oo meel ka yimaado la yaqaano sida dadka cuna kiniinada qaarkood dawooyinka qaarkood hormooniska ku jiraan steroid kaleedo kaleento oo xanuunka kushin oo kale ku dhaco ama si caadi u isticmaal kuwaas oo kaleento waa xallo isticmaal waxa aanan dawladda baridinsalonka ya taqaana balmana kuwan xiiqda loo cunayo dadka noocaas oo kale uu ku dhacaa dhiikarku hadduu kaliya xanuun jiro oo xanuun waxa jira
xoog badan oo kansar yar ah feeyo koromosomo la yiraahdaa kaasoo kale hadduu ku jiro dhiikar buu keenaa xawnada qaar waxyaala kalena way keenaan laakiin cilmi ahaan intaan naqaano ee kafraha badan ku dhaca bini'aadanka aqoon looma laha meeshu ka yimaado laakiin cilaajintiisa iyo ka digiddiisa iyo ka wacyigiisa la yaqaanaa waxyaala kiciyana way jiraan marka waan sharaxaynaa markaa waxaan leenahay markaasi da'daasuu ku dhacaa sida oo kale marka adduunka la cabirayana waxaa la yidhahdaa 139 bilyan معناه 1.139 معناه 1 بليون iyo waxa weeye 390 milyan oo bini'aadan u haya macnaheedu waa cudurada ugu faafsan waxa la cudur faafa ma hayso cudurada faafa isagu maaha waa cudur aan faafin laakiin lama kala qaadayo macnaheedu haddaan anigu qabo ama laakiin waxa laga yaabaa tafiirta waalidka hadduu waalidka qaarkii xagga hooyada ama xagga aabaha uu cid qabto waa suurtagal qofkii inuu u soo tallaabo ayaa la yiraahdaa xanuunka noocaas marka ayaynu caawa sharaxaynaa iyo dhibaato bilaadan ku hay sida uu yahay haddaba markaynu sharaxno waxaan leenahay wuxuu keeni karaa wuxuu ku dhacaa baan leenahay dadka ilaa iyo 1.39 buu ku dhacaa waxaa la yiraahdaa inta badan dadka uu haya وحيو بقول كيبا لح يا أفرتن معناه وحن كشرنا أفري كنتم ما كشرني لح يا أفرتن بقول كيبا مؤجا إنه حنون كاس حيو مؤجا تبديدنا السوق اسكع عافمات قبا أو إلا ضم وغض الحين بوتها جواب عافمات أما قلب كسوق على يصير صارا دي خرب الله يدهم بالوجود هذا دي جاجي وكعسيهم بوقف كالوجود هذا معناه وحوي ذاك بدن كود مؤجا ويان waxaa la sidoo oo kale intana boqolkiiba 240 waxa la yiraahdaa waxa weeyaan qofkaasi dhibaato weyn buu gaarsiin karaa lamana ogaado waayo imika waxa la isku haystaa doodaha cilmiga adduunka xagga caafimaadka socda waxa kamid ah war sideen u raadsanaya anigu caafimaadkayga xaaladda caafimaadka ku ogaanaya dad waxay marayaan in ay noloshoodii caawisiixan waayay hurdo fiican buu gali waayay wol badan baa ku bilaabmay cilad buu arkay kaba soo qaad lug baa yar xanuuntay uu ordaya isbitaalku tagay subaxaba innagana waa taqaanaa dhakhtar cid lama xiriirno waxa lama xiriirno waa dhaqan aan soo baranayo aad u horeeyay qofku waxa laga yaabaa isagoo xanuuno caadi qaba inaanu dhakhtar ba taginba anaga waxa noogu daran kuwan waxbay dilayaan kuwa wax dilaya qofku ma basbaaraba kuwa kale ee مثلا قاحض وكرائيو اشتغل قاحضا كشقين جري مددر waxaan la yaabay qofkii oo sanbabadii ama TBD sanbabadii ay cadaadeen ayaa lagu keenaya adduunyadana waxa wacyigelinta loo sameeyaa oo dareemaya maanta Sheekh Maxamed Ilaahay jannada ha geeyo inoogu yeeray wax kale ma aha waa wacyigelin qofku inuu khibrad u yeesho uu degdego qofkii oo xanuunka wax looga qaban karay waa hadda isdaweyso Ilaahay biidni Ilaahay tacaala caafimaad badhelaysa waxa inta inoo raaca marka waxaan leenahay dadka badankooda haddana kuwa og xataa waxaan leenahay 120 sida soo cabireen macna waa tirokoob adduunyada lagu sameeyay weeyaan waxay leeyihiin dadkaas isma daryeelaan iyagu og xanuunka inay qabaan ayaan haddana istiryeelin oo aanay ka hortagin ciladii keenayay dawooyinkiina aanay qaadanin marka waxaan leenahay arrimahaas oo dhan waxay keenayaan cilad bay keenayaan waxa la yiraahdaa marka tiradan bini'aadanka soo sheegnay dawladaha dhaqaalahoodu aadka u sareeyo waa taqaana cilmi ahaan waxay sameysteen dhakhtar gaar ay sameysteen oo nolosha private ka systemka ee imika ku dhaqan inagu kuma dhaqmaan dhakhtar baa u jooga wadamada adduunka qolada Mareykanka waxa la family medicine dhakhtar takhasus u jooga halkaas oo u tagayaan waxa uu soo sheegaya way ku qoran liiskiisa faylkiisa nidaamkiisa ku qoran barigan waxa la Yurubta galbeedna waxa u badan waxa la GP baa u badan oo dhakhtar gaaro ayaa u qoran kaasay ka soo baaraan oo soo ogaan lambarkiisa ku qoran magaciisa ku qoran liiskiisa addresskiisa caruurtiisa ma ku qoran halkaas ka baaraan marka inta badan inagii marka waxa laga yaabaa wixii inuu private u bato nidaamka dawladnimadu waxa laga yaabaa maadaama khalkhal badan ku soo dhacay imika la saxaya weydadaan dhakhaatiirta dawladda u shaqeeyay haddana dadka badankoodu waxa u malaysaa inaanay ku ord badnayn
markay mawduuca ka hadlo waxaan leenahay dadka dhaqaalahoodu liito baa la yidhahdaa wadamada sida Soomaaliya Soomaaliland ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay waxaa la yidhahdaa wadamada kooban ee danyarta u badan xanuunadaasi aad bay ugu badan yihiin dadkoodana waxay hayaan 67% xanuunadaas ku dhaca meesha wadamada kale ugu yaraan wacyigelin la wado oo loo sheegay tusaale ka soo qaad marka la yidhaahdo qofkii warbal noloshan ee fadhiga u badan ee aynu qabatinay ka bedel noloshaada inagu ma qaadana inta badan oo qofkii waa dukaan buu haystaa macdaar buu haystaa maxay buu haystaa dhakhtar buu yahay meel un baa la fadhiyaa dadka badankeeni waadi ka arkay imika adduunyada kale waa la ordaa jimicsi baa la sameeyaa waa la socdaa waa ka sheekeyn doonaa waxa ay qaabka wax looga qabto badankooda haddaba cilmi ahaan xogaa waa la kala turroonaaday waa la turroonaado cid baa laga soo qaata cilmiga marka imika soo qaad qolo la yiraahdo American College of Cardiology raggaas laga soo qaataa cilmiga ma takhasus kastaba oo iyagu baxthi badan iyo hanti badan lagu bixiyo wax ban soo saaray dhammaan waxay cadeynayaan markaasi dhiikarku inuu cillad weyn yahay oo u baahan in aad kala saarto marka cabiraysana laba nooc waxa la yiraahdaa systolic iyo diastolic waxa la yiraahdaa xagga sare oo noqda 120 xagga hoosena 80 inta dusha ka xifdiya marka dhiiga laga cabiro وين حاجة سنقطة بقول إلى باطن إلا بقول سدون لباطن مرة حاجة هو سنة سديتين النقطة ويان أنت مركي تحي وحي كسر ريا هدوك هو سديتين كي سكر دو سجاشين يمادو بقول لباطن يمادو وعذر هدو كم سريع بقول لباطن كم بلا بقول سدون كأنري وكردو وبقول أفرتن بقول كنتن بقول نقدنا كتجرس بالله كلا صار دونايو وحلولن دونا وديك كر عادي dhiikar dhexdhexaada iyo waxa loo yaqaan malignant waa xad ka bax ayuu noqonayaa marka macnaheedu saasaan dhahaynaa marka waxaan leenahay xanuunkaasi aad iyo aad buu u dhib badan yahay sidoo kale waxaan leenahay way yar jirtaa marmar wax la isku yar khaldo waxa la yiraahdaa dhakhtarka marka ugu horeysa u tagto waxa la yiraahdaa white coat syndrome oo imika Sheekh Maxamed waa kan ka shaqeeya arrimahan duulka hoose waa ka shaqeeya marka soo yar gasho jiraaca ku yar qabanaysa markaaba waa dabeecadda dhakhtarka iyo bini'aadanka ka dhaxeeya dhakhtarkii shaarka cad uu xiriyay marka loo soo galo ee lagu cabiro marka buu boodaya dhiigaagii marka waxa la dhakhtarku inuu go'aan ku qaadan marka ugu horeysa hadaanu aad u kacsanayn oo yiraahdo qofka waxa laga yaabaa white coat-kii oo shaarkii cadaay dhakhtarku xidhnaaba cilada in loo dul qaato ayaa ugu muhiimsan baa la yiraahdaa waxa leeyahay markaasi xanuunka noocaasi calaamad u leeyahay bal kelimada aad u dhageysta calaamadaha uu leeyahay marmar waa bila calaamad waa ka soconaysa qof wuxuu ka ornaya iyadoo madax xanuun dareema madax xanuunkan waxa laga yaabaa inuu qaato inuu paracetamol iyo kiinadiina suuqa yaalo seer laqo qofkaasi iskar laqa laga yaabaa oo yiraahdo sadale laakiin calaamada ugu muhiimsan waxa kamid aha waxa leedahay waxa kamid ah madax xanuun baa kamid ah sanko oo dhiiga ama goror baa kamid ah waxa kamid ah daal iyo culays qofku dareemo oo nashaadkii activity-ga uu lahaa oo dhan oo hoos u dhaca qofku waxa laga yaabaa inuu aragiisu tabcaamo oo ka sheekeen doona sababta keenaysa waxa laga yaabaa qofkaas inuu dareemo feedha xanuun ama inta xabadka iyo feedhaha soo inay xanuunaan qofku waxa laga yaabaa naqasku inuu culays ahaan ku qabto qofku neefsigiisii inuu cuslaado waxa laga yaabaa garaaca wadnaha qofku inuu ka dareemo inuu isbedel weyn jiro waxa laga yaabaa marka qaarkood qofkaas inuu kaayada in yaroo dhiiga ku arko oo suurtagal weeyaan waxa laga yaabaa qofkaas dawakhaad inuu yeesho oo uu dawakho markaaba waxa laga yaabaa qofkaas qof kacsan oo diiran buu noqonayaa qofkaas waxa laga yaabaa inuu dhidid badan yeesho waxa laga yaabaa qofkaas habeenkii markuu seexdo inuu markaaba khalkhal ay ka tahay hurdadii raaxada uu seexan jiray inuu seexan waxa laga yaabaa qofkaasi sidoo oo kale in indhihiisa oo kale dhibco casaan ama dhiiga ay soo yar fadhiistaan waa suurtagal weeyaan macnaheedu calaamadahaasi waajib ma aha oo nidaam ma aha dhakhtarka waxa la xisaab ma aha waxa aan sheegnay qofka laga wada helo ma aha laakiin waxa laga yaabaa qayb kamid in qofka ay ka soo baxdo inay ka soo baxdo qayb kamid ka soo baxdo laga yaabaa waxaanu soo sheegnay markii hore marka inaynu xiidadani ay cadaadis bayaan dhiigiina garaac xoog badinayo marka isku biiraan dhiigiyo xoog garaac u badinaya iyo isku beegmaan xiidayo dhubnaaday macnaheedu waxay ku muujinaysaa dhiigaas wuxuu ku dhex maraya xiidada cadaadis orod badan iyo degdeg buu dhex maraya
markuu qofkii jirkiisii soo galo kaba soo qaadin xididadii maskaxda waxa ugu muhiimsan maskaxdiibu soo galo qofkii dhiiggan xoog buu guuxayaa u socdaa maxay keenaysaa marka qofkii inuu ciiro aragiisu inuu koobnaado madax xanuun badan inuu yeeshay keenaysaa xubnaha kale jirkana saasay ku noqonaysaa marka keliyahoo kale oo 25% qaabilo dhiigga ka soo baxa wadnahana waaba ciladaha ugu horeeya kaliya fariisiga keenay weeyaan ilaahay naga haye xubnaha kalena saasay dhamaantoodba ay noqonayaan wadnaha qudhiisi garaacan xoog loo garaacayo xiidadiisii dhiigga siinaysa qudhidiisa ayaa isla dhibaatoonaya marka waxaan calaamadaha arkayna waa calaamado dhammaanba ku xidhan awoodda dhiigga maraya weeyaan ku xidhan weeyaan waxaa leenahay markaasi waxyaalaha xasaasiga ee qofka aan arki karno inuu u sii nuglaan karo xanuunkan waxaa ka mid ah haddii qofkaasi uu leeyahay taariikh wadna xanuun oo kale macaan hadduu leeyahay macnaheedu sii siyaadinaysa xanuunkii ila faham xanuunkii wuu jiraa soo maahan xanuunkii laakiin hadday ku biirto intan aan akhriyaynaa way sii siyaadinaysaa oo dhib badan bay keenaysaa waxaa ka mid ah hadduu dufan subagii kolestaroolkii leeyahay hadduu keliya xanuun qofkaasi leeyahay hadduu qofkaasi sigaarka iyo balwadaha dee ku baas yahay hadduu qofku raashinkiisa aanu ilaalinayn oo dee wax walba afka gelinay marka la sii da'weynaadana marka 30 la gaadho wixii ka dambeeya waqtigii la is ilaalinayay baa lagu jiraa okay waalidkoo kale hadduu lahaayo kale way si ciladeynaysaa oo kaleento qofka hadduu buuran yahay miisaankiisu aad u weyn yahay oo kaleento overweight hadduu qofku noqdo iyo wixii la mida da'diisu hadday 65 ka kor u dhaafto da'diisu 65 hadday kor u dhaafto sida oo kale waxa la yiraahdo inta badan wuxuu ku badan yahay xagga dumarka dadka badankoodu taa kuma baraarugsana wuxuu ku badan yahay xagga dumarka rag iyo dumarka marka la eego waxa weeyaan dumarka ayuu ku fara badan yahay garaaca wadnuhu hadduu qofkaasi cilad ka qabo wadnuhu intuu si aad u garaacii kalena ku sii biiro waxay keenaysaa dhibaato kasta weyn bay keenaysaa iyo wixii la mid ka ahaa ka soo qaad gabadha oo kale hadday caado hore uga go'do kale cilado badan baa jiro yimaada markay dumarka waqtiga sunnada ay ka goodo ay gaadhaan iyadna waxay keenaysaa cilad badan bay keenaysaa macnaheedu inta waxaan kala jeednaa in la fahmo cudurradaasi dhammaantoodba inay israacsan yihiin inaan fahmnaa fiican su-aashu waxay tahay marka intee xubnood ayuu dhibaateyn karaa dhiiggaasi xoog u socdaa waaye dhiigga waxaan sheegnay inuu xoog u socdo cadaasna ku socdo waxaan leenahay markaa xididadu xididba xididkuu ka yar yahay labun bay noqonayaan inuu xidho oo cadaas buu ku socdaa iskana xididkiina uu sii cadaasmayaa dhiiggiina xoog buu ku socdaa inuu xididkii xidhmo iyo xididkii inuu qarxo xididkii inuu dilaaco ama xididkii inuu xidhmo labadaa unbaa ugu badan cudurrada ku keeni karay waaye tusaale waxaa ka mid a maskaxdii oo kale halka waxaad ku qaadateen doctor Gaboso macalinkaygii halkan weydiisay casharka waxa weeyaan in uu keeno stroke ama falij ku keeno falijku waa laba nooc inuu xidid xidhmo oo maskaxda intii xididkaasi ka xidhmuu nafaqeynayay ay dhimato dabeedna qofkaasi uu qaybtaas bilaa oksijiinta iyo bilaa nafaqada noqotay dhammaan ay dhibaatoodo qofkii markaasi dhinac dhan uu qalalo ama carabkii hadalkii ku adkaada iyo wixii la midka ah waxaa jirta laakiin kuwa ka sii xasaasisan oo dadka markaas looga digo oo la yiraahdo iyadoo taasi jirto taasi waa in weyn oo jirka ka mid ah dhiigiyo meel weyn xidhay weeyaan laakiin dhiigu waxa xidhmi kara mararka qaarkood meel yar waxa loo yaqaanaa microinfarct in yar baa xidhmi karta tajallud baa dhici kara wax yar baa xidhmi kara taasi waxay keenay laga dareemi doona qofka marka dambe qofkiiyo xasuustii luminaya qofkiiyo garashadii luminaya oo garashadiiba ay ku adag tahayba xasuustii hore taariikhdii qofkiiyo luminaya qofkiiyo la arkaya inay wax ka sii dhaceen maalin ka dambaysa haddana calaamad muuqato oo faalijkii weynaaya haddana qofkii kama muuqdaan laakiin waa maxay markuu qofku control waa kaasii keenaysaa markaasi iyo wixii la midka ah waxay keeni kartaa xidhmashadii xididka ama qaraxii ama dilaacii uu sameynayay waxay keeni kartaa marka in yar unbaa socon karta hadhow tole marka mashiinada la galo la sbaarayo unbaa warniyaho halkaa
niyo bari hore wax ku taabteen qof wuxuu yiraahdaa ma badareemin ba anigu ma badareemin saawgeed waxaan u bixinay xanuunkii dhamaantiiba silent killer baa yiraahdaa dilaaga qarsoon ama aamusan baa yiraahdaa ciladii uu sameeyay oo dhan waxay noqotay inuu qofkaagii dhanaa uu qof mucawaq oo ka dhigaya qof mataqaana yaani lixaad la uu ka dhigaya lixaad la'aantu ka dhigay ayaa keenaysa markaasi inay mar ku qarsoomi karto oo hoostaasu ka guraya marna waxay keenaysaa marka inuu calaamad weyn oo muuqato faalja ku rufto kale wadnihii oo kale inta badan marka dhiigku xoog badan wuxuu keenaa wadnuhu waa afar qaybood marka hore waa badan yahay laakiin afar qaybood waxa weeye waa laba haamood oo sare iyo laba haamood oo waaweyn marka tabidixda oo lafta fentrolada taasi ayaa bararta marka way weynaataa waa tan dhiig badan jirka gaarsiinayso soo tuuraysa weeyaan taasa marka bararta wixii ka dambeeyana waa cilad iyo dhibaato keenta keliyihii waxaan leenahay inta badan waxay keentaa keliyuhu fadhiista waadika arkayo qofkii loo meeray keliyihii oo wixii keliyuhu qabanayeen mashiin u qabanayaan ama ugu dambeynta la qaadayo oo leeyahay adduunyada la geenaya oo u baahanay maanta inaga qudhadeenu marka dadkii inay isku noqdaan shacbi weynaheeni iyo dawladeeni oo la qaban qaabiyo si keliyaha loo bedelo in dadkii loo keeno waayo waa xudur faafsan oo bilaadan ku dhacay marka kii dan leh ama kii ilaahay jeebkiisa wanaajiyay baa dibadda u dhoofa oo loo soo bedelaa inta badan laakiin waa xanuun xaqiiqo ah marka tagto imka isbitaalkeena guud dhex fadhiisato qaybta sifaynta keliyaha shiraac ku qabanaysa khalqiga ilaahay meesha leeynaysa ku jira ee dhalinyaro waayeel iyo dhinac kasta baa okay waxa leeyahay marka 360% macnaheedu waxay baaba xariba 360% dadka bini'aadamku ku dhadhii karkaas wuxuu keeni karaa kaliya fadhiis marka keliyuhu fadhiista inta badan 360% waxa keena dhiikarka meesha 350% laga yaabo inay keento baasha la yiraahdo macaanka uu keeni karayo xididadeenii way sii adkaanayaan maadaama xoog lagu isticmaalay way sii adkaama ka dambaysa ilaa ay adkaadaan oo atherosclerosis noqdaan oo xidhmaan marka qaarkood iyo wax la midka indhihii oo kale ayuu wuxuu ku keeni karaa xanuuno fara badan wuxuu keeni karaa in dhiig ku furmo indhaha wuxuu keeni karaa inay mataqaan xididadu ballaadmaan aneurysm baa la yiraahdaa way ballaadhaan aneurysm baa la yiraahdaa way ballaadhaan marka qaarkoodna waxa baa dhici karta wax la yiraahdo cortical blindness baa dhici karta oo qofkii sidoo u joogo baa loo nayaa saaku soo kacay waxa ma arkayo complete arigu u dhaqaaqayba ee dhacaysa marka qaarkood indhihiina saas ku sameeyay marka waxa leenahay xanuunkaas dhibka inta leeg leh wax la daawan karo ama la suugi karo midna maaha wax la suugi karo maaha waxa leenahay hadaba xanuunadaas maxaa la socon kara keligii ma socdo marka qaarkood inta badan xanuun baa soo raaca inta badan waxa soo raaca dhiikarkii oo saaxiib yihiin ama markasta isaguna sababi kara kana hor bilaabmi kara xanuunka loo yaqaano wadnaha xanuuna qofkii oo imika waad maqashay ma jeclay xarunteena gargaar waxa lagu sameeyo xiidada markay xidhmaan lagu yar furo wadnaha anu waxaan ka tagay isagoo 500 iyo waxoogaa qof lagu qalay baan ogaa habeenooda ribood bixinayeen oo mirada kunkii waan dhaafnayba waxay ku muujinaysaa markaas degdega dadkii ee xanuunkaas u qabanayay khalqiga ilaahay xanuunka leh inay soo fara badanayaan waxay noqon kartaa inay la socdo xanuunkii dhiikarkii qofkii lahaa stroke marka xayada marka koowaad faalij kugu dhufto waa digniin TIA u badan tahay ama uu ku dhiftayba laakiin waxa la hadduu mar labaad kugu dhacay xanuunku ku hayaa wali Soomaa xanuunkii meesha laga ma saarinay inta ma xirada waa marka geeridu imanayso wixii ka dambeeyana waa geeri beerada waan maqalnaa qof la 2 jeer 3 jeer ku dhacay haddana dib badan buu keeni karaa inta maxaa laga ordaya walaal stroke ba ku dhuftay ilaahay ma keenay waxa ku dhacay dhiikarkii muxuu kugu keenayaa wuxuu kugu keenayaa jirkaaga inuu fadhiisto qayb jirkaaga kamida ama jirkoo dhan fadhiisto waxa laga yaabaa carabka inaad hadli kari weydo aragaagu inuu liito oo waxba arki kari weydo afka iyo dhankii dhaqaajinkooda dhacaanka iyo wasakhda laga dhaqaajiyo waxa laga yaabaa xagga hoose kaadada iyo saxarada in laga qaado nolol ma taqaan suuliga ma tii kartid meel lama gaari karaysid wadinka arkayood ilaahay nooma keenay dad waxa arteen 7 sano 8 sano qaar 10 sano la gaarsiinay xanuunkaas intuu ku dhacay dul yaala wari sirrihoodii oo halka lagu hayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ka bari jiray ilaahay inuu san gaarsiin waxa
imika soo qaad inuu qofku markuu geeri xaal dhinto si caadi isku raaco ayuu fiican yahay haddii laakiin jirkaaga la jarjaro ama intuu faaskuufto kaadida lagaa qaado oo waxa la quality of life ay ka baabo noloshaadii aad waxba qabsan kari weydo way dhib badan tahay rasuulku wuxuu ka ilaahay ka magan galay ardul umar waa da'da asaasaqa la yiraahdo wuxuu ka magan galay sayil aqsam sayil asqam wax alla wax cudur xun ee dhibaato keeni kara ee qofkii bil aadanka meel xun dhigi kara ilaahay baa laga baryaa marka inaan ka barno ilaahay oo qurux badnaan lahayda haddii maalin geerno imanayso yari iyo weyne tan doona noqotee adoo dhan oo caafimaad qabo quruxdaadii iyo wanaagaaga ilaahay israacada qurux badnaan lahayd runtii intuu ku dhacayna kuma wiirsanayno waa dadkeena iyo walaalaheen weeyaan ilaahay inuu caafimaad sariic siiyo ayaa runtii aan ugu ducaynaynaa wuxuu keeni karaa kaliyo ku fadhiista wuxuu ku keeni karaa wax loo yaqaano in wadnihii ama xaja samabadii uu naqaskeedu adkaado qofku dhibato waxyaalaha kale ee keeni kara la socon kara waxa kamida macaanka dufanka rheumatic disease-ka iyo xanuunada qaarkood oo sida kuwa maskaxda ku dhaco kale qofku psychiatric la yiraahdo ee waalnida iyo wax la mid ah ku dhawaan kara ayaa keeni karta sida oo kale waxa la yiraahdaa wuxuu dhici karaa caruurta dhiigani ku dhici karaa wuxuu kaloo ku dhici karaa qofka dumarka ah ee uur kale uu dhici karaa wadii ka arkayo waxa uu naqaan aragawdo arabkay carashatay baan inaana inta badan oo way barartay baan inaana inta badan marka wuxuu ku dhici karaa dumarkii wuxuu ku dhici karaa waliba xanuuno culus oo fara badan ku keenaa dumarka matqaana uur kale iyo wixii la midka ah sidoo oo kale wuxuu ku dhici karaa dhiig kar buu kaga tagaa dadka hablaha badankoodu marka ay noocan noqdaan waa loo xisaabiyo waxa yiraahdaa haddii ay mar ku dhasho ama laba jeer ku dhasho wixii ka dambeeyay dhiig kar caadi qaadaysa waxay kaloo keeni kartaa inuu sii socdo dhiig karkaasiba oo imika gabadha markay dhasho oo kale inuu ba sii socdo suurtagal weeyaan ama ka dhaqaatiirtu waxay isweydiinayaan oo kale gabadha maxaad ka sameynaysaa dawlad siinaysaa see loo daweynayaa ilmahan uur ku jira see loo badbaadinayaa sida oo kale gabadha way suuxaysaa way gariiraysaa way suuxaysaa ay sameynaysaa maxaa laga qabanayaa markay dhasho oo kale ama aad jeexday aad la soo kala furo ilmihii hooyadii ilmihii haysato dawooyinkii ma la siin karaa ma loo wadi karaa naasku ma u gudbinayaa yani waa doodo badan oo cilmiyo iyo qaabka loo sameynayo way u baahan tahay waxaa kamida emergency ay sameyn kartaa oo waxa waa calaamadii caadiga ah laakiin waxa leedahay ma dhici kartaa dhiikar aan la cabiri karin uu yimaado uu iman karaayo waxa la hadii uu xagga sarana 200 ka bato oo meeshan 100 ka niri 80 buu dheeraaday ama ka sii bato 200 buu gaaray ka badan xagga hoosana 80 ma ka doonayno wuxuu noqday 120 wax ka badan buu noqday deedna waxa leenahay inta badan kaasi wuxuu keeni karaa in dhabeelku keena iyo wax la mid uu keena wuxuu kullu keeni karaa waashi waxa la kooma qofku inuu miyir beelo oo miyir beelkaasi lagu dhigo ama suuxdin buu keeni karaa qofku inuu gariiro iyo wax la mid ka buu keeni karaa iyo ay koosu keeni karaa intaas oo nooc waa inta nooc ee horta xanuunkaasi uu ku iman karayo weeyaan waxa la yiraahdaa haddana markii adduunkii la baarayay wadamadii baa la eegeego anigu maalinta cilmiga aan helay buugleeda medical evidence ma ka akhriyay waan rumaysan kari waayay wuxuu yiri dawooyinka noocaas dadka madooba la siiyaa dadka hindiyaankana dawooyinkaas la siiyaa indo-aashii la isku yiraahdo shiinaha iyo hindida iyo dadka cad kuwaas la siiyaa anigu maskaxiyan waan yar diiday waxaan xasuustaa nin daayir baan ahaa dabeedna tijaabadii ma sir baan tijaabi qof baan dawadii caadiga siiyay marka dawadii caadiga siiyay ayuu waxba ka jawaab waayay kiniinka waa siinaysaa qofkii kuma dawoobayo wixii aan ka akhriyay buuggii baan dib ugu noqday dabeedna waan sii dawadii kaan u bedelay caadi buu noqday idan wax rakaaga horreeyay weeyaanoo ay soo tajrubeeyeen marka waxay yidhahdaan dadka afrikaanka asalkoodu u badan yahay ee madow xanuunku way u nugul yihiin baa la yidhahdaa waa ka midna inaguna se carab baynu inagu waan u nugulnahay nugeelkaas wuxuu baahan yahay haddana si gaara ilaalin buu u baahan yahay dhakhaatiirteenu runtii aad buu taqaanaa dalkeena joogta aad buu yaqaanaan dadka aasiyaanka ahna way wuxuu u baahan yahay ilaalin gaara iyo dawooyin gaara ugu dambeyn dadka caddaanka ah ee caddaanka yurubiyaanka u badan ina dawooyin gaara u baahan yihiin inkastoo bili aadan wada yihiin haddana intaa markaynu fahmnay haddaba cudurka masiibadaa leh
waxaynu u yargalaynaa si degdega war maxaynu cudurka ka sameyn karnaa saddex nooc baan kala qaybinaa marka inagu talaabadaynu qaadeenay saddex baan kala qaybinaynaa waa ka hortag intaan awoodi karayno ka hortag inaan samayno inaynu baaritaankeena nidaamkeena samayno iyo inaan iska daweyno saddexdaas nooc bay noqonaysaa waxaan leenahay markaasi waxyaalaha la taabtay waxaa ka mid ah marka aad cusbada hadday jirkaaga ku badato raashinkaad cunayso hadduu cusbada ku badan yahay dhib badan bay tahay waana waxyaalaha imika adduunka ka digilada labada shay ee cadcad ee sunta ah baa la yidhaahdaa waa sonkorta iyo cusbada weeyaan marka milixdii iyo sonkortii in la yareysto ayay waajibinaysaa marka in sonkortaasi milixdaasi aan aad iskaga karin qofkii dhiikar lagu sheego ama calaamadda arkaan oo iska joojiyo ayaan aad ugu dhiirigelinaynaa waxaan leenahay dadkaasi dood cilmiyeed baa ka taagan laakiin waxaan raacaynaa taan noo qoran waxay leeyihiin hilibka cas oo dhan dhibaato badan buu leeyahay bay leeyihiin marka ilaa inta laga soo caddaynayo innagana markaad hilibka cas cunto umad caafimaadda reer miyigeennii dad wada xoodan oo qurux badan oo socod badan bay ahaayeen wax kale ma ahayna dee hilib iyo cadi caanay ku noolaayeen haddana markaad eegto noloshan imika casriga ee guryaha aan dhisanayn xaafadaha dhex fadhinee camalkeennuba xafiis iyo guri fadhi iyo istabameeraysi u noqday wax badan baa naga khaldamay oo dib u noqosho u baahan marka raashinkaynu cunaynaa waxaa la yidhahdaa waa in uu bataa saddex bay u qaybiyaan weelkii saddex bay u qaybinayaan waxaa la yidhahdaa kala badh saxanka aad wax ku cunayso haddii la awoodi kara dee waa inuu noqdaa khudaar vegetables waa noqdaa kala badh noqdaa kala badhka soo harayna waa inuu badhan noqdaa wax borotiina kalluun oo beed oo hilib oo wixii ilaahay ku siiyo badhan rubaca kale yara soo harayna uu noqdaa wax yaraaye bariis iyo baasta iyo garow iyo digir iyo wixii dee lagu daray uu noqdaa weeyaan kelimadda ma lala fahmay annagu tajrubo kastaan samaynay waan kaftami jirnay waxaan odhan jirnay markaan safarada galayno khudaartu waxay kusii hadhaa hargeysa markaad sii socoteed hilibkaa sii kordha markaad burco maraysay laascaanood halkaasi hilibkaa sii weynaada markaad soo noqotana khudaartii bariiskaa soo kordha odhan jirnay oo darafka ay kala yihiin marka runtii waxaan u baahnay dhammaanteen dhaqanka inaan qaadanno oo dhaqanka intaan qaadanno intaan awoodi karno raashinka khudaarta leh ee la isticmaalo dad kale balwaddu waa waxyaalaha baabi'inayaba tubaakadii la cucbay sigaarkii oo ka mid ah tubaakadii afkay gashadaan ama way cabbaan oo sigaarkii u noqonayaa iyo wixii la midkaa qaadkii baa ka mida yacni waxyaalaha runtii anuu aan dul taaganay mar kastaba researchkaygiina labadii buug waxaan ku qoray jaad baan ka qoray in aad iyo aad looga taxadaro intii la awoodi karay waayo absad shay waxaa ka mid a imika maanta sheekh maxamed wada soconay baa waxa igu lahaa wadamadii Yurub oo dhan waxa la Ukraine waxa laga joojiyay raashinkii laga soo iibsanayay khudaartii laga soo iibsanayay Iran bay joojiyeen waayo waxay dhaheen waxa ku farabatay bacrimiyaasha ku farabatay aniguna shakhsiyan mucjisaas way ugu dhacdo anoo joogay Djibouti baan dekada booqday waxaan arkay marka aanu maalinta aan joogo 300 gaari ku dhawaayeen la rarayo oo wax ciido kale lagu rarayo hadda markaan wareystaan ku warnayo waxaan maxay yihiin markaas waa wixii beeraha lagu hagaajinayay aqlabiyadina waxa la geenayaa zoonka oramada xeer iyo wixii ka hooseeya oo jaadkiiba lagu beerayaa imika adduunyadana waxay leedahay wixii laga keenay Iran baa iska joojino Yurub oo dhan baa joojisay imika maxay ku joojinaysaa waxay leeyahay bacrimihii aad u isticmaalaan jiilaalkeena waad ogtihiin oo dee jaad ma jirin oo dee hamadayga dili jiray qabow xoog la ka jira halka imika laakiin jiilaal iyo gu iyo xagaa oo wada akhtarkaasun haddaba yaa inaga baaray inagii yaa si ogaan doona inay khatarta ku sugan wax la mid ah way ku jirtaa marka tubaakadii alkoolkii khamrigu waa jira berigii hore wuu nagu yaraa imika dee wadinka arkay waxa booliskii dhibaato haysta habeenii maalinba TV-gaad furaysa waxa ka soo baxaysa meel heblaayo lagu qabtay waxaasoo masiiba lagu qabtay marka taasoo baahan tahay waxa kale oo kamid ah waxyaalaha dufanka badan leh inaan iska ilaalino oo runtii ma taqaanaa baruurta badan iyo waxa badan in aad la iska kontrolo iyo wixii la mid ka ahaa sidoo oo kale waxaan leenahay markuu qofku rabo inuu istaweeyana inta hadduu ka hortago hadduu xanuunkii leeyahay laboonba u sugan baarid joogtaa dhakhaatiirtu waxay yidhahdaan 3 biloodba waxaa qofkii marka uu og yahay xanuunkii 3 biloodba
inuu dhibaato gaarsiiyey jirkaagii kale isbaadh haddii aadan ogeynna kulli 6 bilood mar isbaadh 6 bilood mar isbaadh oo adiga dee naftaadii garanay in isbaadho weeyaan marka mashiinadan la wada galayaa wax un bay soo tuuri ciladun bay kuu sheegi ciladaasina waxa laga yaabaa ka faa'iido oo markaaba dhaqsiis kaga duwayso laakiin haduu tooleyimka inka waxa noogu badan qof u tagay feedha xanuun ama calool xanuun buu tagayaa wadamadeena dibadda ama Yurub buu tagay ama wuxuu tagay Hindiya loo badiyay ama Turki baaridii ma ku maloonaya kansar baa ku hayaba wuxuuna marayaa meel aan wax laga qaban karin magaalada ku tusaysa markaas in qofkii dhaqso isku baaro bay keenaysaa markaas sidoo oo kaleento waxaan leenahay qofkii inuu dawooyinka loo soo qoro u qaato sidoo qaato waa inaga waxa nagu fara badan dad aan aqoon lahayn rag iyo haweenba u badan oo been sheegaya oo saka ornaya ma haddii toonta la qaato iyo haddii la qaato geed hibil aad cunto dhiigu ka degaya maya wali la hadda ma hayno toomahan waa dawo waan wada qiraynaa laakiin ma hayno dooskii dhabta loo isticmaalay xaqiiqo mo dib u dhigaa dhikarkii mise ma dhigo waa su'aal isweydiin leh marka inagu mashiinka yare wax lagu cabiro ka weyn halkaas la saaraa ama ka yar halkan baa la saartaa waa raqiis maanta qaar kood baa laga yaabaa inay shirkadaheenu wada keeno farmasi kasta weeyaan $20 $30 baa laga yaabaa in la siiyo uu qofku isku cabiri karayo ku ogaan karayo subax kasta inta uu marayo dhiigu isugu ogaan karayo sidoo kale waxa muhiim ah kulli cilad baa la socota ama macaan ama indha xanuun ama wadna xanuun baa la socda inaad dhiikarka iyo waxa uu kugu keenay ciladana aad la daweysaa muhiima saddex waxa ugu dambeeya inaad bedesho qaabka noloshaada raashinka aad cunayso jimicsi wax badan asinta awoodi karayso marka da'dan anu aan soo gaaro kale kontonka markaad madaxa ka hor dhaafto waxa fiican socodka hadduu qofku sport ahaan jiray ordaya mooyaane socodka u wanaagsan waa ciladahaas ka fara badan dhamaanba hadduu qofku la yar yahayna inuu iska galo meelaha gymka oo iska jimicsado maxuma kulli jimicsi la isku raac waxa laga hadaba ujeedada ama hadafka ama yoolka kale lahayd dawadu maxay tahay waxaan leenahay waxaan kala jeednaa qofkii in aanu xubnahan kale ee jirka ku dhacay aanu dhibaateen maskaxdii kaliyihii indhihii wadnihii in aanu dhibaato gaarsiin ayaan horta ka hortagaynaa waxaan leenahay qaabka u shaqeeyaanna waxa weeyaan saddex baa soo sheegnay samahayn garaaci wadnaha quwadii cadaadiska iyo dhiigga xoog ku ordaya saddexdaas soo sheegnay markii hore marka imika waxaanu galaynaa farsamadii biyahan galaynaa biyihii ayaanu ka sheekeynay samahayn tuumbadii biyihii xoog uga socdaan waxaan markaa maxaa samayn kartaa horta bamka in la soo xidho sama noqonayso bamkii wax laga soo qabto ama la yareeyo quwad wax ku soo tuuray marka waxay leeyihiin waxa weeyaan quwadii dhiigga ee soo tuuraya wadnuhu horta in la yareeyo oo stroke volume baa la yiraahdaa in la yareeyo marka dawooyin baa jira yareynaya ka oo dhiigga xoog leh soo baxayay yareynaya kuwa kale waxay sameeyaan maxaan soo sheegnay tuumbadii haday sii yaraatana orodkii biyo soo kuma soconayn imikana xeedo waxaan leeyahay haday xeedba xidkii sii yaraado quwadii ku dhaawacay kaliyihii wuxuu xeedada yaraayay wadnaha indhaha kaliyaha maskaxda ku yaala dhaawacaya haddii laakiin ballaarino maxay keenaysaa qulqul buu noqonayaa dhiig Soomaha ma kuwaasna faaso daliilka baladaayo xeedada ballaariyaan dawooyinkaas la isticmaalaa kuwa ugu dambeeya waxa weeyaan in wixii siyaada ka ah laga daadiyo kaasina waa kuwan kaadi badiyaha loo yaqaan ee diuretics la yiraahdo qofka la siiyo dawooyinka noocaas la isticmaalaa ilaa iyo 7 nooc ilaa 8 nooc oo kala duwan oo dawooyina ayaa qofka dawo ahaan loo siiyaa laakiin waxa leeyahay qofkaasi dawada uu qaadanayo mar waxa loo siiyaa xabad single baa loo siiyaa oo qof kasta xabad baa la siinayaa haddii ilaahay ma keena xanuunka ugu cuslaadana waxa laga yaabaa in laba la sukaar raaciyo haddii uu sii cuslaado waxa laga yaabaa saddex la sukaar raaciyo intaa waxa lagu dadaalayaa saddex dawo isku xiran ama kala furan baa lagu dhiibayaa marka waxaan u baahannahay in qofkii fahmo haddaanu dhiiggaasi ku soo celin sidii caadiga ahayd ugu yaraan kaba dhigba in uu 80 yimaado ama ilaa 90 uu yimaado kii sarna ilaa 140 ka yimaado oo kale hadduu intaa ku soo xajiyo kale xanuunkii qof waxa laga yaabaa in uu nabaradii u gaarsiin lahaa inuu ka badbaadin karo ayaa suurtagal ah waxaan u baahanahay markaasi in aynu ugu yaraan
dadaalka iyo cadaadiska xooga badan saarayno inaynu saarano baahannahay marka waxaan leenahay waxaan ku soo koobaynaa markaa in aadan dhayalsan kow xanuun haddii kale ku dhayalsan imisaynu aragnaa walaalaheen saaxiibadeen qaraabadeennii oo wada faalij iyo nabarro xun nafjiifa laa caadi walaa xisaab waan wada garanaynaa waayahay ha dhayalsan inuu aadna ku dhayalsanne waa marka labaadee walaal isbaadh waa talada labaad isbaadh oo dee waad ogta imika weliba ilaahay uuna horumariyo xaafad kasta iyo guri kasta aagaarkiisa ama farmasiya baa ka furan ama klinig weyn baa ka furan dalkiini maanta sidii hore maaha waa la soo dabaadhi karayaa ka kale waxa weeyaan ugu yaraan haddaadan xataa adigu cudurkiiba qabinba laakiin bini aadan baa tahay da'da aan sheegayna kugu socotay nolosha ku jirto wuu iman karaaye 3 bilood 6 bilood 9 bilood haddaad awoodi karayso isbaadh oo ha cabsoonin qaar baa ku odhanaya anigu bahalkan waan ka baqaa farmasiya markaan saa u soo gala marka arkaba nin wuxuun bay sheegi balaayi sheegi warda balaayi sheegaas waxa wax ku taray adiga weeyaano haddii wuxuun lagu sheego lagu daweyn waa lagu daweyn idan balaayi la ka sheegi maaye laakiin inaad tagtaa qurux badan waxaa kaloo muhiima dawada joogto dhiikarku ma bogsado intaan ognahay cilmi ahaan imika ma bogsado waxaan u baahannahay marka inaad dawada joogto waa for life inta ilaahay nabad iyo nolol kugu daayay waad la qaysaa imika la sheegayaa macaankii in loo helay bankariyaska ama ganacu wax laga bedelayo dawooyin la siinayo waa la sheegayaa dhiikarkii dawooyinka la imika la keenay cusub soo baxaya waxbay badan bay qabanayaan marka laga yaabo in la gaaro maalin waxba la duweyn karayo insha Allah taala laakiin waxaan u baahannahay inaynu si joogto ah dawadeennii aanu qaadano wixii dhakhtar ku qorbe sida oo kale wala dhakhtar ku xidhno boodboodku laga fiican yahay jaarkaaga dhakhtar baa ku yaala xaafadda mid baa ku yaala magaalada degan tahay mid baa ku yaala rag aqoon badan loo la amaana baa jira iskaga xidhnow u tag hal lagu baaro dawadii hal lagu siiyo si joogto ah markaad xoogaa joogto ayaamaba as dareento khalkhalkii aad dareento ama aad iscabirto waa fiican tahay waayahay waxaa soo hadhay haddaad afku xoogla tahay anuu cuqaasho ixtiraam bay nagu leeyihiin wadakaa volunteerka nin subaxii soo kaco usoo shaqo tagay inuu mushkilo xalliyo maaragtay waa cuqaasha waadi ka arkay laakiin waxaan dhahnaa markay ku dhacaan dhiikarku dee lama gali karayo waayo masiibo ku cayda iyo markaad gargashay aad wax kala qabato mid ku kiciya la waayi maayo oo imikadan waxaa la yidhaahdaa qofka lagu og yahay dhiikar cidda ka xanaajisa adduunyada maxkamad baa la saaraya qofka nin dhiikar la ka xanaajiya idan kuma jawaabaye markaa tiraahdo war waxaagan tiraahdo isuu jawaabi siraado markaa isagu baa dhici isagu baa qalalaya markaa idan dhiikarkii ku kacay maskaxdii wax yeeli dhigirkii wax yeeli marka laga baxana marka waxaan qofkii marka aad tahay dee waayeel noqotaba kullay gar iyo arrin iyo talo umad lagu la imanaya dadkiina dad dhaqankoodii toosan yahay in badan ma waana garanaynaa hadda waxa dhex boodo dee faalijkaagu waa iska banaanka marka haba dhexgal waxa sameeyay habeenka iska racsil waxa tiraahdaa war anigu masaajidkan kale quraanka ala bidikrillah ha meel bad ku dagaysaa aad ku nasanaysaa aad ku qaboobaysaa iska cibaadaysanaysaa haddii laakiin lugaha ku doonto masiibadii dib bay leedahay marka maxaa la yiraahdaa inta badan war walaal istilaala um bataala marka barakallahu fiikum wixii aan ka garanayay haddii su'aalo jiraan mooyaane ilaahay idinka intaasaan kusoo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخوتي الأعزاء جزاه الله خير الجزاء شيخنا دكتور كينا هدو الدكتور يحيى وحو كهري سقو شيخ وعالمة هي كهري وانين متدينة ومتفننة وقوانت الدين تنكو في عنه waxaa ugu muhiimsan hadda aynu ka faa'iidnay boqolkiiba 240 dad macaan qaba oo aan calaamadii macaanka isku ogeyn oo iska socda baa jira oo aan isku ogeyn marka nasiixada ugu horeysa aynu fahmnay waxa weeye intuu xanuunku sii adkaan lahaa alwiqaayatu khayrun min alcilaaj intaanu xanuunku kugu sii fidin
da'daana tahay maalan 39 iyo wixii ka sarreeya waxaa laga yaabaa inaanad iskuba calaamadihii isku arkayn laakiin aad dhikar leedahay inaad dhakhtar khaasa yeelato oo dhowrkii biloodba mar haddii alla yidhaahdo dhakhtarkaaga wax badan kaa qaadan mayso waa daqiiqado intaa lagu baadhaya lagu eegayo waxaa kaloo inu fahamnay xanuunkan dhiikarku xanuun laga bogsado ma aha waa xanuun lala noolaado marka haddii xanuunka aad yeelato min fadlag waxaad isku daweysaa cuntadaada inaad horta nidaamiso socodkiina inaad ku dadaasho fadhiga faraha badan aad iska ilaaliso haddii alla ka dhigo dawada laguu qorana aada joogtayso waa xanuun dawadiisu ay joogto kula noqonayso kula noolaanayso marka waa xanuun adduunyada aada iyo aada u fara saaray bilyanis buu marayaa dadka uu dhibayaa bilyanis buu marayaa marka waxaa fiican in qofka muslimka ahi uu ku dadaalo inuu naftiisa ilaaliyo inta aan dhakhtar soo fadhiisinay ilaa gaboose ilaa buuxana laga soo gaadho mid waliba wuxuu ku talinaya war socodka ku dadaala fadhiga iska yareeya xarakaad jidhku waxa gubo cuntadan faraha badan ee midba mid laga dabageynayana iska daayo caloosha firaaqa siiya oo raashinkii hore ku jira raashin dambe ha ka dabageynina mashaakilka ugu waaweyn cudurradu ka dhacayaan marka baaraka allahu fiikum maadaama aynaan haysanin dee shay baadho cuntadii lagu baadhayo oo inaga soo baadhaya oo taimika oo doctoorka kuu sheegayay maantadan aan aqriyayay journaal ay leeyihiin Russia iyo India iyo dowlado badan oo barigaasa waxay iska mamnuuceen dhammaan wixii khudaar uga imanaya Iiraan waxaan ka helay bay yiraahdeen dawooyin ay isticmaalaan oo kansar keeni kara marka Iiraan ay suuq u weydo halka la keenayo waa halkee xagga bal keenayo dad xoorta oo idil halka la damcaya sababtoo ah halkan cid ma baarayso marka mar haddii ilaahay ma cid kale inoo maqan aanay jirin barakallahu fiikum inana awoodana aan talaabsano cuntadana aan iska yarayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته